Geeska Afrika ayaa ka mid ah gobollada ugu nugul isbeddelka cimilada ee dunida ka dhaca. Isbeddelka cimilada waxa uu sii dheer amni darro baahsan iyo colaado baahsan. Kadib mashruucii Soomaaliya ee 2011 koox ka kooban hay'adaha dawliga ahayn oo caalami ah iyo kuwa maxalli ah ayaa isugu yimid si ay hal meel isugu ururiyaan xirfadahooda waxqabad kuwooda ugu wanaagsan oo bulshada wax tari karto si ay u sameeyaan barnaamijka adkeysiga ummadda Soomaaliyeed ama SOMREB. wada shaqaynta iyo iskaashiga hay'adahan awgeed waxaa la soo saaray istiraatiijiyado sanado badan soconaya iyo barnaamijyo qorshe loogu talagalay si sare loogu qaado adkeysiga bulshooyinka Soomaaliyeed ay u leeyihiin dhibaatooyinka nololeed ee la soo darso. Istiraatiijiyadahan ayaa taabtay dareenka deeq-bixiyayaasha waxayna sahashay inay taageeradu waxay sahashay in aan sameeyno barnaamijka sare u qaadista adkeysiga bulshooyinka Soomaaliyeed kaasoo sanado badan soconaya dhinacyo badan taabanayo. Midaan ayaa noo sahashay inaan sii xoojino waxqabadkii mashruucii naga sii horeeyay si aan bulshooyinka ugu yeelnaa si xoogan. barnaamijka sare u qaadista adkeysiga bulshada Soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa hab ku salaysan deegaan. Habkan ayaa wada shaqaynta ka soo bilaabay heer bulsho deegaan kaasoo si sax ah uga turjumaya dhibaatooyinka saxda ah ee bulshada la daaladhacayso iyadoo isla markaana la shaqaynaysa dawladda iyo deeq-bixiyayaasha si bulshooyinka wax loola qabto. SOMREB waxay iskaashi la leedahay bulshooyinka, dawladaha bulshada rayidka ah, tacliinta sare iyo qaybaha gaarka loo leeyahay si loo xoojiyo loona kala duwan hab nololeedka sarena loo qaado adkeynta cimilada, loona yareeyo halista musiibooyinka iyo xoojinta midnimada bulshada si looga hortago colaadaha loona xoojiyo dawladnimada iyo nabadda. Nidaamka aan u adeegsano sare u qaadista adkeysiga wuxuu si toos ah ula shaqeeyaa bulshada si loo horumariyo awoodooda ay ugu dulqaadan karaan dhibaatooyinka la xiriira habnololeedkooda sida abaaraha soo noqnoqda. Aan bulshooyinka ka taageernaa la qabsiga isbeddelka cimilada taasoo saameyn togan ku leh cuntada iyo dhaqaalaha bulshada. Ugu dambeyn, annagoo la shaqaynayna dawladda federaalka, maamul goboleedyada, deeq-bixiyayaasha iyo adeegyada gaarka loo leeyahay, hadafkayagu waa inaanu isbeddel ku samaynaa nidaam nololeedka bulshada taasoo ku qotonta adkeysi isdhexgal muuqasho ee ku aadan adkeysiga iyo inclusivity-ga. si aan u fududeeyo loona maareeyo shaqada waxaan qaadanay habka maaraynta habboonaanta. waxaan sameynaa kormeer joogto ah si aan waxyaalaha bulshada wax u tarinay mashruucyada ku jiro ugu bedelno kuwa bulshada waxtar u leh kana turjumaya baahiyadooda. nidaamkayaga sanadlaha ah ee lagu cabiro adkeysiga bulshada ayaa naga caawiyay inaan ogaano in wax ka qabadkeena uu bulshada wax taray ama bedelay iyo in kale. kormeeridda joogtada ah ee aan ugu kuurgalno ubaylahanaanta masiibooyinka ayaa haga gargaarka degdega ah een u samayno bulshooyinka aan la shaqeyno. waxaan leenahay dhaqaale aan ugu talagalnay gargaarka degdega ah. maadaama ay SOMREB ballaaranayso waxaan hadda martigelinaa 2 barnaamij oo waxtar u leh bulshooyinka aan la shaqeyno. barnaamijyada aan martigelino waxaa ka mid ah shaybaarka hal-abuurka SOMREB kaasoo xal loogu raadiyo caqabadaha ka hor yimaada fulinta mashaariicda gargaarka iyo horumarinta. barnaamijka kale ay SOMREB maalgeliso ayaa ah shabakadda waxqabadka fahanka iyo adkeysiga Resilience Nexus Learning and Action Network oo ka shaqeysa horumarinta kobcinta awoodda iyo wadaagista xirfadda sidii sare loogu qaadi lahaa hay'adaha maxalliga ee guud ahaan Soomaaliya, Suudaan iyo Koonfurta Suudaan. madal labaad waa shabakadda adkeynta Nexus Learning Action Network. SOMREB waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu muddo dheer ee ka shaqeeya sare u qaadista adkeysiga bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku sugan marxalado khilaaf iyo deganaan la'aan. SOMREB waxa ay noqotay astaantii barnaamijka adkeysiga taasoo isku xirtay gargaarka degdega ah ee bini'aadanimo, horumarinta iyo nabad dhisidda. 10 sano ee la soo dhaafay barnaamijka SOMREB waxa uu ka caawiyaa bulshooyinka inay la yimaadaan qorshayaal iyo mashaariic ay ku xalinayaan dhibaatooyinka nololeed ee haysta iyo nidaam qaylo dhaan ah. barnaamijka iyo dhaqaalaha gargaarka degdega ah wuxuu u sahlay qoysaska inay ka gaashaantaan waxyeelada masiibooyinka taasoo ay ka faa'iideysteen helista lacagta cayrta si uusan hoos dhac ugu imaanin adkeysigooda. waxay dib u dhis ku samaysay kaabayaasha dhaqaalaha ayadoo adeegsanaysa dalkaaga dhiso adigoo lagu siinayo dhaqaale. SOMREB waxay tababaro ku saabsan daaweynta iyo quudinta xoolaha siisay reer guuraaga iyo xoolo dhaqato beeraley. SOMREB waxay soo saartay dad u tababaran habka xoolaha loo daweeyo iyo sida cudurrada looga hortago. xoolaha la talaalay ama la daweeyey waxaan u tababarnay beeraley kaalmaynta samaynta kooxaha beeraleyda ah. waxaanu fidinay wax ka qabadka dhanka beeraha ah. 10 sano ee la soo dhaafay SOMREB waxay ururisay in ka badan $134 milyan oo dollar. tani waxay noo saamaxday in aanu si wada jir ah u wanaajino nolosha dadka ka badan 4 milyan oo qof guud ahaan Soomaaliya.
iyo saamaynteena dhabta ah. Somreeb waxay ku guulaysatay inay yarayso gaajada iyo nafaqadarrada bulshooyinkii ay la shaqaynaysay. Waxay sare u qaaday dakhliga bulshooyinkii ay la shaqaynaysay. Waxay aad u yaraysay guuritaanka bulshooyinka ay ka guuri jireen abaar, maadaama adkaysigooda sare loo qaaday. Waxay gaashaan u samaysteen abaaraha. Abaarta hoose oo ay saameeyeen soo galootiga iyo helitaanka ugu wanaagsan ee looga dhigayo qoor hoose si loo yareeyo naxdinta ay la kulmaan sida daadadka. Somreeb waxay qorsheynaysaa inay sii wadaan sidii ay u ballaarin lahayd dadaalkeeda iyada oo u marayo iskaashiyo saamayn leh oo ay la yeelato bulshooyinka, hay'adaha la midka ah kuwa wax u qabta, dowladda iyo deeq-bixiyayaasha. Waxay qorsheynaysaa inaan sii ahaano hogaamiyeyaasha fikirka iyo kuwa hal-abuurka sameeya marka ay timaado dhisidda bulshooyinka adkaysi badan, ururo iyo nidaamyo si wadajir aan u helno rajo mustaqbal wanaagsan.